Qisadani waa qiso jecel oo aad u xanuun badan. Qisadani waxay dhex martay wiilkan iyo gabadhan aadka isku jecel. Waayo haddii aad dhamaysatid, waa qiso ku reebi doonto murugo aad u xanuun badan oo aad la yaabi doonto. Gabadhan iyo wiilka aad ayuu u jecel yahay, la'aanteedna ma joogi karo, balse waxaa jiro nin xaasid ah kaasoo ka soo horjeeda wiilkani. Sidoo kale asagana wuxuu jecel yahay gabadhani. Wuxuu meesha ku arkay gabadhii iyo wiilkii. Markuu soo soco, waxay aragtay indhaha ay ku qabatay ninkii dilaaga ahaa. Waxayna ku yidhi, maxaad ka rabtaa gabadhani? Dharbaxayuu ku dhuftay, wuu kala tuuray. Gabadhii maskiinta way oonaysaa, waxay u qaban kartaa ma lahan. Ninkii dhulka ayuu yaalaa, wuxuu u yeeray tuugintii kale, qaada oo ii soo wada ayuu yidhi. Maya maya ayuu leeyahay. Ayadii waxay leedahay, ka daaya hadilina ayay leedahay. Markii ay tareenkii kasoo deganaysaa, ay isku dayaysaa inay kasoo degato, way soo orday. Asagii waa la soo wadaa, waxaa la keenay meel. maxaa ku kay gabadhan aan jeclahay ayuu leeyahay. Maxaa ku kay? Walaalow iska kay daaya, nin maskiin ayaan ahay, gabadhaasna waan jeclahay, iska kay daaya ayuu leeyahay. Maya ayuu yiri. Muxuu indhaha saaray gabadhii, maxaa u soo tegatay? Soco ayuu leeyahay, meesha ka tag, waan ku baryayaa xabiibi, meesha ka tag meesha, way ku dilayaan kuwani. Maya ayay tiri, qofkay jeceshahay inay ka tagto ma rabto ayadii. Waan ku baryayaa, meesha ka tag, meesha ka carar ayuu yiri. Maya wiilkii gabadha ayuu qoorta soo qabtay, wuu soo wadaa. Ninkan maya jeceshahay? Ninkan ma jeclaan kartaa. Haddii aad jeclaatay ninkani waan dilayaa, noloshiisa waan dilayaa. Haddii aad noloshiisa jeceshahay, ninkani waa inaad ka fogaataa. Ninkani ma kugu arki kara agtiisa. Haye ayay tiri. Markaas ballantii sida ayay ku qaaday. Wiilkiina waa uu niyad jabay, waayo gabadha waa la qasbayaa. Soo bax ayuu yiri, dila ayuu yiri ninkaas, si xun u dila. Ninka si xun ayaa loo dilayaa. Gabadhiina iyadana xoog ayaa lagu watay, si xun ayay u dileen maskiinka, si xun ayay u dileen. Maalintii xigtay, asagoo meel wadada ka mid ah taagan oo gabadhii sugayo, oo cabaar meesha taagan yahay oo murugaysan oo iska oonayo, ayuu wuxuu arkay gabadhii oo soo socoto. Wuu farxay markuu arkay, wuu ku soo orday. dadka ulama dhaqmo isku qaab ama isku dhaqan, waayo xanuunkaba daawo keliya looma isticmaalo. kala sii duwan dadka, adiga si gaar ah ayaan kugula dhaqmaa. qiimo ayaad ku leedahay agtayda, waadna ku qaalisan tahay mar walba. sibaad igu weyn tahay aniga, hadalkaaga waan u nugulahay mar walba. ma garan karo sababta aad gooni iiga tahay dadka kale. in ka badan in qof la aamino ayaan ku aaminsanahay adiga. wax walba oo qaaliya iyo wax walba qurxoon waad igala qiimo sarraysaa. wax walba sabab ayay leeyihiin, xataa geerida sabab ayay leedahay. balse sababta aan ilaa xad kuugu hibayay kalsoonideyda, aniga xataa ma garan karo sababta keentay midda. waan ku ixtiraamaa ilaa xad, waan ku aaminaa ilaa xad, waanan ku dhowraa ilaa xad. ha ii ogaan wax walbaad aniga ii tahay, balse keliya ii ogow ruux ku qadariya inaan ahay mar walba. waxaad igu beertay maaha,
waxaan isku beeray maaha. maalintii labaad waxay farxad la qaadanaysaa ninkii xaasidka ahaa ee sida xun gabadhan ay xoogga ku haystay ee ku yidhi haddii ninkaas aad la kulantid waan ku dilayaa. balse ninkii ayaa meelaha kamida ka soo baxay ayagoo meeshii cabitaan ku cabayo. gabadhii markay indhaha saartay way naxday, wuxuu yidhi kaale ayuu yidhi, si ay ku baxda ayay raadinaysaa. kaale ayuu leeyahay, si ay ku baxda ayay ninkan ayay ka cabsanaysaa. marka si ay ku baxda ayay rabtaa waxay ku tiri waxaan rabaa inaan musqusha aado, may fasixi kartaa? kac ayuu yidhi. marka ayaa tiri sida ayay kusoo baxday. waan soo laabanayay tiri, way soo dhaqaaqday say usoo socotay. balse saaxiibka ee meelahan ku jiro way raadinaysaa. dhab gacantu qabsaday. maalintii saddexaad ayadoo dharkii arooska xiran oo soo cararayso arooskeedii ay soo cararayso uu saaxiibkeedna wadada iska dhex fadhiyo ayaa waxay wadada ku aragtay saaxiibkeed. markuu indhaha saaray ayuu farxay, way kusoo oroday iyadoo oonayso. hab ayuu siiyey ku dhagay, waayo farxad intaa ka badan. balse nin xaasida ku dhex jira jaceylkooda waxay dhaheen soo baxan cararna waan baxsanaynaa. say usoo ordayeen ay usoo socdeen waxaaba hor istaagay ninkii dilaaga ahaa ee gabadha jeclaa. way isku naxeen. markay kusoo dhaqaaqeen ay orod ay isdheheenba gaari ayaaba ku dhacay oo sidii ayayba shil ku galeen. kuwii tuugintana way naxeen. gabadhii iyo wiilkii meeshii ayay shil ku qofba wuxuu dhitaystaa dhaxalkii ahaadee dhagar qabee adduunyada dhibi kama maqna